عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka. waxaan gaar ahaan u salaamayaa asxaabta ku xiran janalka Farxii Ibrahim. welcome walaalayaal, maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo Allah u naxariiste marxuumadii yareed caasha maadaama kiiskeeda uu in badan soo jiray oo isjijiid badan isqaqabsi badan kadibna xaalkeeda soo gabagabooy ilaaha mahadle ilaahaygi soo kashafi raggii oo maanta afkooda ku qiranaayo inay gabadhii baabi'iyeen aan maanta akhbaaraadka aan ka maqalnay. taasna waxaan jeclaa inay la daawataan asxaabteeda qaaliga ah. dhageyso wacan, daawasho wacan insha Allah. xaq ilaaha u wehel ah gooray naqataba xaq waa soo baxaa. maantana waxaan haynaa xaqii ceesha oo soo dilaacay. ما شاء الله تبارك الله. daawasho halkani waa channelka dabagalka wararka. waxaanu idiin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan kiiska dilka Caaisha Ilyas oo waji cusub yeeshay iyo mid kamid ah raggii loo xukumay oo qirtay in uu kufsaday Caaisha Ilyas iyo sida wax ay u dhaceen oo maxkamadda uu ka hor sheegay. maxkamadda sare ee Puntland ayaa u fariisatay dhageysiga kiiska la xiriira kufsiga iyo dilkii loo geystay Caaisha Ilyas Aadan, iyadoo dhageysiga kiiska uu waji cusub yeeshay kadib markii uu maxkamadda horteeda ka qirtay in kufsigaasi uu geystay mid kamid ah raggii loo xukumay kiiskan. sida uu sheegay xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed ayaa sheegay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame in maxkamadda Puntland uu ka hor qirtay inuu ka qayb qaatay kufsiga Caaisha hal marna uu galmooday. sidoo kale waxa uu sheegay in falkaasi uu kula jiray nin kale oo aan weli gacanta lagu soo dhigin iyo mid maanta maxkamadda la geeyay. Maxamed Xareed ayaa sheegay in qirashada Cabdifataax ay isbedel ku keentay kiiska Caaisha Ilyas. eedeysanaha saddexaad oo isna maxkamadda la horgeeyay ayaa sheegay inuusan wax luga ku lahayn falkii lagu kufsaday laguna dilay Caaisha Ilyas. kiiska isugu jira falka kufsiga iyo dilka ee loo geystay Allah u naxariistay Caaisha Ilyas Aadan ayaa soo jiitamay ku dhawaad 6 bilood, iyadoo dhageysigii shalay ee maxkamadda sare ee Puntland uu ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah. Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir ayaa falkan kufsiga iyo dilka loogu geystay magaalada Galkacyo, waxaana falalkaasi lagula kacay si weyn uga argagaxay bulshada Soomaaliyeed. maxkamadda darajada koowaad ayaa horey dil ugu xukuntay 3 nin oo ku jiro ninka qirtay inuu ka qayb qaatay dilka iyo kufsiga Caaisha Ilyas, waxaana kiiskooda uu horyaala maxkamadda sare ee Puntland oo 3 eedeysane raacfaan ay u qaateen, waxaana lagu fulin doonaa dil haddii maxkamadda sare ay taageerto xukunkii dilka ahaa oo ay rideen maxkamadihii hore. haddaba waa kan Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame oo qirtay in uu kufsaday Caaisha Ilyas isla markaana ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo cidda kiiskan maleegtay. eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyay, ma hal eedeyn xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyay. anigu kufsi baan galay, xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyay kufsi, wuxuu ii soo jeediyay dil, wuxuu ii soo jeediyay afduub, wuxuu ii soo jeediyay khalkhalgelin amni. soo sidaa ma hayna xareed. okay anigu kufsi baan galay mudan gudoomiye. شرحت قبل كوفسيغا إيسا وقشي وعدة كلا قشي واحد دل وعن قلينا ما شفتو واكم مقالي كوفسيغا قشي يا كوفستي عايشة كوفستي صوص سبحان الله. نو شرحت نقصي سؤالي يودي كوفسيغا نوعوها يا كلا قيب قاتي محاك شدان باقول لي صوبو هاي محا خصبي وحا خصينا قيستيد. anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed Dige. Cabdishakuur Maxamed Dige subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar. Caaisha ma soo afduubteen si qabkay isaan Caaisha isaga afduubay, isaga gurigiisa geeyay, anigu waa uu soo wacay kaliya. guriga lagu afduubayana Cabdishakuur Maxamed Dige. guriga ayaa degan
waxaa degan isaga iyo hooyadiis aduu mara degan may see ku ogaatay inuu cabdishakuur soo afduubay caaisha oo uga qayb qaatay dadan ogeyn aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda su-aal jawaab baa ka dhigan ninkan hadalkiisa waa maqlaysaan haa sidee kugu yeer telefoon miya mise sugoo lugeynaya soo dhow xaalad tahay ku nakan waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi ii imo anoo gurigeyga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaan oo aniga iga soo horjeedaa waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxa aan ka hadlaya oo isa qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da-weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanahay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da-da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da-weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anuu igu dhici lahaa dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligay marka nin weyn wuxuu ku hadla ma aha meeshaan soo joogsa usoo fiyo oo dhimirkana la-een oo just inuu dhaw anaa kufsaday marka waxa waaye walaalayaalo waxa waaye ninba ninkuu ka awood badan yahay hadduu ku tumanayo dhibkeeday leedahay marka ilaahay ceesha xaqeeda iyo daacadnimada ilaahay haddaba soo bixiy inta dhiman allah soo dhammaystiro marka dadkan marka waxa waaye waxaa lagu dhahaa hadda waxaan sheekada waxa waaye markaa fasirtid wuxuu yidhi ani gabadhii waa kufsaday laakiin ma aanan dilin waa mana wasni warna iraaca ka socoto meesha waa arrin lasoo sida aniga macnaa raay ahaantee u arkay oo lasoo qorsheeyay macnaha isku caddeeya inaad gabadhii kufsatay laakiin aadan dilin ma dhici karto hadduu dilina wuxuu ka ogaay muxuu sheegi waaye muxuu ummadda gabadhan soomaaliyeed oo maskiinta oo ciyaalka oo 12 jirka 13 jirka dhibkaas loo geysanayo ninkan odayga waa yeelka albaabada fadhiyo ilmaha yaroo ama ka suuq loo dirsado oo la adeegsado oo gaf meelaha ka siisanayo kaali kufso haysu ku yiri kan hadda dhahayo aniga waa kufsaday kan hadda dhahayo oo dambiga isku cadeynayo danaa u geysi hadduu og yahay inuu kufsaday muxuu u dhihi war gabadh waa kufsanaya ka daay horha u baxdo waa ka danaysta fiir gabadh sharamuuto lahaasta camal waa ka danaysta sir kadib markaa aan baxo oon soo laabtine markaan weydii kulahaa wuxuu ugu jawaabo kulahaa sumcadee meel ugu dhici saasaa u dilaa war sumcad maa idin taal sumcad adduunya aakhiraba ma idinkaa haystaba war ninkaan weyno hadda dhaha gabadh waa kufsada haddii hadda asna darkiis oo maanta la cafiyo adduun oo magaaladiis lagu soo deeyo sumcad maa u taal waa kii ilmaha yar xoogaayo waay marka sumcad intay taalaa sumcad adduunya aakhiraba waaba dhamaatay sumcadda ay sugaayaan hadda kadib maxay tahay nimankaan aqli maa ku yar hadda kan dhahay anaa waa kufsada laakiin ma dilin kan dhahay aqli maa u yar ilma nin maa u dhiman nin weyn nin maa u dhiman malagii dillaha adduunka besaa u harsan wax kaloo u harsan malaha marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa maasha allah tabaarakallah maadaama intaasoo bilood ee kiiskan soo baaraysa ee maantana ay keentay nin cadeysanaya oo isku qiri inuu asaga kufsaday aada iyo aad ayay u mahadsan tahay maxkamadda sharafta leh ee puntland haddana waxaan ka codsanaynaa inta dhiman inay soo dhammaystirto maadaama la helin ninkii kufsaday waxaa qasab ku ah maxkamadda inay helaan kii dilayna iyagaa dhexdooda issheegaya marka waa qaada iyo qariye way isla ogaayeen wax la kala bixinayo meeshaa ma yaalo wax la duugduugayo meeshaa ma yaalo qaada iyo qariye waay ninkaan hadduu yidhi anaa kufsaday oo kana markuu dilaayo uu la ogaa waxay isdhaamaan malaha labadood si bulshada soomaaliyeed ee u badbaado ayna u qanacdo
inay meesha dowlad daacad ee ka jirtana aan u amino oon macnaa ku kalsoonaano waxaan jecelnahay in xaqii ceesha si rasmi ah loo dhammaystiro insha allah biidnillaahi alkariim si ay ummadda soomaaliyeed ay u helaan cadaalad gabdhaha soomaaliyeed weliba caruurta soomaaliyeed si ay xurnimadooda ugu noogaan magaalada ugu dhedheelaan oo meeshay rabaan ay aadaan ma cunug yaroo la adeegsada in la kufsado oo berin beri la iska dhigo nin walba as inkiro waxaas waxay kamid tahay macnaha dowlad xumo ay kamid tahay ma fahmi dowlad la-aan dowlad xumaa dhaanto maasha allah alahaan baa soo saarteen dowlad puntland waxaan ka codsanaynaa in cadaalad la horkeeno dadkan kii kufsada maadaama la helo kii dilin in la helo haddii la waayo labadooda iyagu isku qabtaan in xaqooda la marsiiyo si berika maalin dadkii imaan macnaha koo kale kan maanta haddii saa lagu dilo oo xaqii ceesha laga gudo lama arkaayo beri nin naag dambe ilmaha yar kufsa doono mala arkaayo insha allah maxaa waxaa la yidhi dibiga dil weesha ha quusatee waxaas waay marka daacadnimo lagu sheegaya gabadhan dartooda ay u dhimatay iyagaa ku talagaleen markay kufsadaan haddana wejiyadeen iyo adduunya waxaasay aqoonsanaysaa xaasidnimo waa marka nimankan waxay baabi'iyeen mustaqbalkeeda iyadoo gabaryar ah adduunka u hor leh oo weli meel aan gaarin ee mustaqbal ee nololka raadiyeen ee kufsadeen ee baabi'iyeen ee haddana nolosheeda ee ugu daba tageen wayna sheegay darteed ayaa loo dili waa fahamtimo adi saaxiibo anaa kufsada tiraahda ama iska dhaaftaa naftii naf disho in la dilay diinta muslimka qabtaa ama asiga kaligiisa ahaa ama koo kale ha ola jiro ama walax kale dabad ha ku wataan almuhiim waa koox isku duuban oo gabdhaha yar shaarac u fadhiyo waa in la iska qabtaa oo si dadban iyo si waadax eeb loo qabtaa dadkan oo macnaa xaqooda la marsiiyaa insha allah biidnillaahi alkariim waa mahadsantahay waa mahadsantiin ummad soomaaliyeed khalad macnaa dhib kastood aragtiin waa inaa siaan oo kale loogu hadlaa lagama yeelaya ninkii nin dilo hala dilo diinta muslimka saasay qabtaa noloshana saasay jirtaa sababto ay soomaali waa waalata soomaali waxa waaye ninkii nin dilo in la dili maayo si kaloo lagu kala heraayo maba lahaba sababto ay dadaal qarxina 400 qof aa dhimanay ninkii dili magaaladu jooga in gabdha yar ala aruurna al kufsanaa ninkii kufsad magaaladu dhinaciiska jooga war alisee nolol u damcee ani waa kufsaday haddaa kufsatay haddaa disho same waay waa ina adigana ciqaabteeda martaa insha allah biidnillaahi alkariim ilaahay hana cafiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.